أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada casharkani waa casharkeeni saddexaad ee ku bara afka Faransiiska af Soomaali. Waxaan hore soo aragnay sida saddexda qaybood ay ka koobmaan maxaa ku dhahday verbiyadu. Maanta waxaan isku dayaynaa in aan samayno verb dhammaystiran oo ah verbiyada saddexda qaybood qaybta ugu horeysay ayaa maanta isku dayaynaa insha Allah taala. marka hore si fiican aan isku wada socono tusaalan way verbiyadu iska fara badan yihiin premier group marka lagu leeyahay waxaana lagu gartaa wax la yiraahdo yaa lagu gartaa ikhtiyaar waxay martaa halka ugu dambaysa ee verbiga. markaas maanta waxaan soo qaadanaynaa verb parler oo kale halkan aad ka arkaysaan. marka verbigan aad halkan ka arkaysaan waxaan isku dayaynaa in aan conjugate ama aan samayno, laakiin inta aan samayno waxaan samaynaynaa hordhac yar oo ah maxay ahaydey waqtiga wax Faransiis iyo leeyahay. marka toogan way iska fara badan yihiin kuna waxa jira present baa jira, waxa kaloo jira imparfait, futur, saddexda dhacdooyin, dhacdo fal jooga, dhacdo fal soo socda iyo mid tagay. marka waxaan ku sameynaynaa ka jooga oo afka Faransiiska loo yaqaan present. marka present bal sameeyno insha Allah taala. marka u horeysa intaan verbiga aan ku galin waxaa ka horeysa in aad fahanto ama aad ogaato wax la yiraahdo pronom personnel. waxa pronom personnelku wuxuu ka koobmaa 8 en fait marka la isku soo duubo waa 6 laakiin laba ayaa lagu daraa. sidaan ka arkaysaan waxa weeyeen j'ai dit, il, nous, vous, il avec istinad arkaysaan oo dhan waxa weeyaan maxay ku dhahday pronom personnel. verbigu inta ba ka horeysa inta laanti verbiga dhaqaaqi maayo, marka intaas waa laga maarmaan inaad si fiican u fahansanaato. marka verbiga balahan conjugate salo conjugate waa ka j'ai ba qori ay waxa ku xigsan verb waa parler. marka la conjugate waxa kale oo jirta oo laga maarmaan inaad fahanto wax la yiraahdo terminaison wuxuu maraa gadaal verbigu ka gadaal maraa ugu dambeeya macna. marka terminaison aan sheegi doonaa waa xawiyaan marka j'ai qortid verbigu waxa ka reebtaa ya ka reebtaa marka aad ka reebto waxa ku bedelaysaa pluska marka j'ai aad ku horeyso verbiga wax la yiraahdo yaa ugu dambeeyay. sidoo kale marka aad verbiga ka horeysiisid waxa ugu dambeeyay waad ku bedelaysaa pluski es yaa ku bedeli il. marka aad marisidna verbiga ka horeysiisid il waxaad verbiga ugu dambeeyaysaa nous. marka aad verbiga ka horeysiisid waxa verbiga ugu dambeeyaysaa ons afanta falaya. vous marka aad verbiga ka horeysiisid waxa verbiga ugu dambeeyaysaa ez. il marka verbiga aad ka horeysiisid waxa ugu dambeeyaysaa verbiga ent. verbiga markaas sidoo yahay ma qoraysa markaas sidoo yahay ku bixinaysa ilaa waxaad ka raabsaa oo kaliya waxa lagu garanaa inuu premier group yahay oo ah ana waxaad ku kala bedelaysaa terminaison halkan aan kugu soo sheegay yaa ku kala bedelaysaa ina fahanto filaan inta marka aad fahanto waxaad sameeyni verbi kala tusaalayaal yaan ku siin doona. verbiyadan aan ku siinayo waxa ku saabsanaysa waqti la yiraahdo present. waa waqti aad iska sahlan runtii. inta aad isbedel aad ka aragtay ama si fahanka awoodan yar aad fahmin qabta commentiga yaad ku soo qori kartaa. saasaan sii wadaynaa verbi marka dambe waxaan soo qaadanaynaa dism group verbiyada qaybta labaad oo dism group la yiraahdo oo ah waqtiguna present yahay waqti xaadir uu yahay. qaybta kalena insha Allah taala qaybta ugu dambaysa saddexaad oo iska fara badan yaan soo qaadanaynaa oo aan ka soo sameyn doono resume ama soo koobid iska fara badan runtii. aan soo sameynaa verbiyada oo dhan waxa transm groupka yaa ugu yar adag waqtiguna uu present yahay yaa ugu yar adag en fait waa la fahmi karaa waan fahmi doonaa insha Allah taala. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.